السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليال maanta waxaan joogaa dekada Garcad shirkadda wadaagsan yaa xaqan igu soo dhaweeyay insha Allah waxaan rabaa inaan ii duubo dekada Garcad intii leegta iyo shaqada ka socoto iyo insha Allah wixii rajeynayaan intii leekaato markii project la dhameystiro 2 sano gudaheeda 2024 insha Allah haduu ilaana gaarsiiyo marka xaqan igala socda dekadana aan ii duubi doonaa la joogaa Farxaan oo ka tirsan shirkadda wadaagsan Farxaan insha Allah introduction dadka si oo la wadaag shaqada waxaan qabanaysin waayahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kasto aad joogtaan magacaygu waa Farxaan Faarax Cabdi maanta waxaan la joogaa Axmed oo dalka Holland ka yimid dabcan waxaan rabay ganacsigan ama goobtan dekada Garcad inuu soo booqdo una arko umada Soomaaliyeed waxa ay qabsadeen Axmed soo dhawow sidoo kale waxaan rabaa umada inaan u sheego maanta waxaan Axmed tusi doonaa insha Allah idinkan idin la wadaagaynaa shaqada ka socota dhismaha dekada Garcad goobta ugu horeysa ee hadda aynu tagi doono insha Allah goobaha shaqada dhammaan aan tusi doonaa ugu dambeynna dekada ayaynu idin geyn doonaa goobta ugu horeysa aynu tagayno waxa weeye waa goobta hadda shaqada ay ka bilaabatay noogu dhow waana goobta shamiitada lagu qaso kabacdi shamiitadaas waxa lagu sameeyaa shubka biyaha dhexdooda la geliyo markaan ka tagno waxaan tagi doonaa goobta dhagax laga jabiyo waxaan tagi doonaa crusherka oo isna shiidaya jaygii waxaan tagi doonaa insha Allah markaas dekadii iyo goobta shaqadu ay ka socoto marka sidaa darteed nala socda horey ugu sheegnay waxaan ku suganahay goobta shaqada ay ka socotay goobtan waa goobta loogu talagalay shamiitada ay u qabto arkaysaanba hadda shamiitadii ayaa soconaysa طبعا باوركي ayaa hoos kaga jira waxa uu sameeynaa inuu shamiitadi qaado sida darteed goobtan waa goobta bulkeetiga wax la yiraahdo shoobka waa weyn ee dekada la geliyo wax kasta waxa lagu sameeyaa qaybta shimidka halkan weeye marka qaybaha kale ayaynu tagi doonaa waa aniga Axmed qaybtii hore Farxaan la fahansiye oo noo sheegay in ay qaybta shubka xaqana hadda waxaan joognaa qaybtii dhagaxa lagu shiido oo crusherka marka afar nooc dhagax yaa laga dhigaa marka insha Allah si socon sidoo arkiisiin labaran waa laba nooc oo kala difna oo mid ah hadda waxaan socnaa meesha dhagaxa lagu shiido insha Allah aan la wadaagi doonaa marka aan la socdo واركيسين هيك دقحة سراسة لقدقة ولا يريسية كم كلام سراسة لو شي داركيسين سكوميت كيما dhagaxa lagu shiiday oo crusherka hadana goobaha kala siyaadin goobtii dhagaxa laga soo qaaday aan imaadnay dhagaxaha waaweyn waxa la geeyaa dekada sida badda lagu buuxiyo kuwan yaryarna waa kuwa la shiido meeshaan ka imaadnay ayaa la geeyaa la sii jajabiyaa la sii yareeyaa crusherka marka kuwana waaweyn waa sida aan sheegay waxa dekada la geeyaa sida badda lagu buuxiyo qaybtii dhismaha ka socota xaqan afkii hore laga soo galay baddiina waa taas marka sida waarkiisiin meesha meel aad u ballaaran oo weyn oo qurux badan kalarka biyaha xitaa aad iyo aad ka helay insha Allah rajaynayna galabta malaha dambe mar kale ku soo dabaasho laakiin hadda focuska waxaan saarinaa culayska waxaan saarinaa dekada xagaasaan ii duubi doonaa oo
shaqarna xaggaasaan kasii wadi doonaa. aniga Axmed mar kale hadda waxaan la joogaa dekedii Garcad qaybtii la sii dhameystire hadda waxaan taaganahay qaybta la dhaho Jambi A qaybtaasna laga hor soo jeedin waxaa la dhahaa Jambi B sida u arkaysiin xaggana doonya tugboat yaan la joogtaa doomihii kalena xaggaasi joogaan kalarka badana quruxdeeda maasha Allah waxaan rabaa in la wadaago markaa la socda dekedana waan tusinaa waxaan ka sii socdo cabdirashiid oo aad iyo aad ku faraxsan inaan arko Soomaali xitaa meesha ka shaqeynaya dhismaha dekada lafteed taasna waxay ku cadeynaysaa shaqo abuurka meesha ka jiro oo dhalinyarada Soomaali fursad ay helayaan in shaqo in meesha ka shaqeystaan marka cabdirashiid taalan la wadaag informationka waxyaabaha qabatid iyo shaqo abuurka maxaa fursad ka hesheen hadda dhalinyarada Soomaali tiin gobolka mudug ama Garcad magaalada Garcad marka hore ilaahay ma iskale كونا حانو مانتا نالو كلمي iyo Axmed oo maanta soo booqday aad iyo aad meeshaan waa loo jeedaa caalamka waa laga daawanayaa waa meel dekada inay noqoto Soomaaliya ugu weyn anuu waxaan ka shaqeeyaa waxaan shaqaalaha dekada Garcad ka shaqeeyaa wiishkaas si kino wareerka tahay Soomaalida ka war fursadaha ay ka haysato Soomaalida fursadaha ay ka haysato aad iyo aad عجائب وشغوين بدن إنك هلا مع دعاء أنا وكشقنا هذا ويران قول يكون تنقف ولا نيران سوماليا كشقيس ومدور بشقة كله قد سنك وكشقيس مركا حرفت ما لقيها رأيه وها ما حد عين قف ولا كشقيس بريكة ما رجيت كتك الله ويرو سيستم كيو يقعناه واحد كبدل ووركنا لين عند كد كسر شقيب مركز زراعة إنجنير هاو إنجنير دوك كرني يا وركنا إنجنير كشقيني ورنا سيستم قال قبل سيستم قال له بدل وركنا markale in la jooga dekada Garcad markale waxaan rabaa inaan u mahadnaqo shirkadda wadaagsan gaar ahaan Saciid Axmed iyo Farxaan oo igu soo dhaweeyay inaan chance-kan ay siinaan dekadana duubo marka reer Garcad u tashareen ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu leeyahay dinkana tashara meesha caalamka iyo maalicnigaas laga baxo dekadihiina iyo airportkiina iyo wadankiina dinka dhista vlogana gaar ahaan wixii ku saabsan tahay gobolka xitaa ka imaaday awdal oo aan dekad iyo airport aan lahayn dekadiina dinkana xitaa dhistan ugu horan lahaa ummadda shatee noqra marka mar kalena ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan doonayaa ku dhaw niyadiina iyo maskaxdiina waxa galisiin ayaa gaari kartiin sidaasna la socdo insha Allah booqashadeeni dekada Garcad iyo hadda soo gabagaabine qaybtii ugu muhiimsaneedna oo soo duubnay waxaan rajaynaynaa ku raaxaysateen inta kalena haddana hadda wax kale aan aragnona waan la sii wadaagi doonaa insha Allah marka xaggaasna la socda aad iyo aadna u mahadsantiin